isla barnaamijkeenu faridda aynu ku sii socon doonaa madax baan isla yar sugayaa mid ka mid a macallimiinta inii dhigi doona casharada ka bixi doona halkan oo la yidhaha magaciisa cabdiraxmaan sameeco macallimiinta ingiriiska ayaan soo dhaweynayaa بسم الله كل ده إن الجلاس كي كتيرون بنسموه ده ولا سديسني أساسا ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المركب كوباد وحنا ما نقينا الله سبحانه وتعالى مدشنا كو قرحة بدل ما أنت نقول كل مية صدق الله وحنا ما نقينا معمول كجامعة الجوليس أو فكر كان يعرف تدان لها إسلام كان ملها دور سنة سوودي سنة كياي ما حسوسته لكن برنامج كان ميد هروي سو سعدي بوها صدق الله وحنا ما نقينا عيد والبا أو ديارها وهي كقريب قليل هيد وحويان أما هالنقطة فكرة أما هالنقطة فلين عيد والبا ديارها إن قريب كان نقدان برنامج كل فلوني يجون أديات بمهتين أنت عدنا ما هالنقطة كجاي مع ده أردنا ما نسوي شيء كلن كان أد كوق روح ده بدن له ككلا السعودية دكسية كلا دوانة دلكا جارهان عاصمة ده يجلس تكوق ناديات بمهتين وأنا كأمانين وقتها في عنا وصهرين سيدا وقف قادم لاين برنامج كن وحنا في ليا مدرسان أما كلن كنا ما نتدفرك أيام تدماتك أرض والبايسو وحنك كفايدة ماشان أما برنامج كلا بلاويو إنه كتير دونا بان أيام هذه أقول شويني إذا ما الله هدي الله قدره هاوش أما برنامج كن بلوي سنة ويقولوا هلا يسا إن يرسل لك سنة مرة في عصا سما نسعود كي يجين عادو المغلي ترى وسوينا كذا دبنا يستر ملاني هاي كلي سدا وركو يدينكو عادي هاي أما بورك بابو قران وشيء ده مدرسة ما أنت لا قبنا يوحويان سيدي أرضية سود يارن يسوي امتحان كشهادية فصل كلاميتونات أما فنفوركا قابكي لو ساعدي لهاي لو تاجيري لهاي مدة دايرة كوبانة هذاك هالجنادو بدن بتصوغ شين إذن كي والدكين معلمين تيني معمول كدوكسية ده إذن كنفتينا هذا هالجن كيوم ببرتي لقصي وضيا إنتر دمان إن شاء الله إنه إلهي خير كنا وافتشيو لينينا أبديت جرايو واي إمك واحد وجو بدن لو بهاي واين أرديدي أبديت ليرسيو مركا كل واحد بدن وين يسرون دونا ما دام إن جلسة يسكوجي من دونا إمك هذا الكيك وحنا كسوكو بيا أرديادو بدن باكر تا امتحان كشهادي جا مركا الله ما دور دبعادو هو سكنت iyagoo caan ku ahaa inay dhibco fiican keenaan ama ay baasaan galaasyadii hore ay soo dhiganayeen tusaale ahaan markuu form 3 uu soo baasay form 2 markuu uu soo baasay 1 uu soo baasay ama markii aad wanaagsan buu keenay imtixaanka bilaa laga qaado uu baasaa laakiin mushkiladu waxay noqotaa mar alla markuu imtixaanka GC-ga galo arday badan oo loo yaqaanay xarfaan ama ahaaba de loo yaqaanay maahe ayaa waxa dhacday inay dhibco hoose keenaan talo su'aashu waxay tahay maxaa sabab u ah sabab aad u badan baa jira xafiiska imtixaanaadka waxaan uga maadnaqayaa oo afka macallimiinta ku hadlaya riboodka quruxda badan leh ay soo saareen iyo dugsiyada u qaybiyeen oo riboodkaas uu ku qoran yahay xog aad u badan oo sheegaya imtixaanka GC-ga problemada lagala kulmo iyo problem kasto lala kulmo xalkeeda kulli waa aragtay mar malaynaya iskuul badan waa loo qaybiyay riboodkaana si fiican u akhriya caqabadaha ugu waaweyn ee arday aad u badan oo dhibco fiican keeni jiray sanad dugsiyeedkoo maadooyinkoodu ku fiicnaa haddaan midha ama laba idinka xasuusiyo ku riboodka idinku qornaa kow waxa ka arday badan markay imtixaanka galaan waqtiga caqabad ku noqdo arday aad u badan waxa ku dhacda su'aalaha ay ka jawaabayaan iyo waxaan isqaadanin waqtiga ay haystaan isagoo maado walba 2 saacadood iyo 10 minute haysta ayaa haddana waxa dhacday in arday badan ku cabato ama ay ku andacoodaan ay sheegaan waxyaabaha ay ugu caanaan dhibcaha hoose keeno waqtiga ay u yaraa maalintan imtixaanka galiya kooranayaan qaarkood su'aalaha la weydiiyay si munaasib ah uga jawaabaan I do mean waxaan ka wadaa qaabka su'aasha loo weydiiyay qaabka uga jawaabaya kala laba noqda caqabada iyaduna ugu daran wax weeyaan arday badan markay isku dayaan inay sameeyaan arin aan fiicnayn oo inta macallimiinta iyo maamulada dugsiga inaga wacyigeliyaan haddana si ay ku dhacdaba dad badan ay isiraadaan sameeyo oo aan wanaagsanin oo qishka guntiyo gunaanadkii gabagabada hadalkayga waxaan ka soo koobayaa ilaahay khayrka ayna waafajiyo arday walbaaba bal ha isku day muddada yar kooban ee uu jaamacadda Golis joogo
inuu samaysto maxaa la dhahaa important concept waxyaabo muhiim oo xasuusa maadooyinka ama subjectyada baxaya number 2 waxaan idinkula dardaarmi lahaa inaad samaysataan timetable ama jadwal aad ku habaysataan waxyaabaha muhiimka aad qoranaysaan tayaduna ugu muhiimsan ee lagama maarmaanka ama xasuusta mudan wax weeyaan isku daya buugaagtii hore looga shaqeeyay imtixaanada inaad isticmaashaan waayo wax badan baad ku ka faa'iideysaan arday aad u badan iyagoo aan isku badaynin wax imtixaan ka shaqeeyaan bay kan galaan kaasi wuxuu ka saacidayaa inaad wax badan aragto wax badan qaabka lagu weydiinayo aad fahanto in hadalka malaha kulli waqti baa la isku qabanaya inaan galaaskii ku jiraan ismooday waan iska waday waa maasantiin waan salaamayaa aad waa maasantahay aad ku mahadsan ustaadku kusoo kobcinka wasaaradda waxbarashada iyo suganaa marka waan sii socon doonaa haddii ilaahay nafsi daayo waxaan u gudbayaa dhanka maamulayaasha maamulaha dugsiga sare ee sheekh cali ibraahim eegiska calibaax yuusuf mataan oo hore baxaya ayay soo dhaweynayaan insha allah waayahay marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan filayaa kolley